subax wanaagsan. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Labadan beri waxaa aad baraha bulshada iyo bahda caafimaadka ugu wadaa wacyigelin ku saabsan cagaarshowga maadaama ay lagu jiro World Hepatitis Day-skii. Soomaaliya waxaan ognahay in hepatitis B-ga ama nooca cagaarshowga B-ga loo yaqaano uu ka mid yahay xanuunada aadka ugu badan. Cilmi baarisyo badan ay dad badan oo saaxiibkay Dr. Kadli uu ka mid yahay ka qoreen. Aniga waxaan rabaa inaan wacyigelinta bulshada loo jeedinayo ku daro in bahda caafimaadka ee wacyigelinadaas loo sameynayo maadaama meelaha ugu badan ama ururka dhakhaatiirta ama isbitaalada la isugu imaanayo ay joogaan bahda caafimaadka. In bahda caafimaadka loo sheego riskiga transmissionka. Waxaan ognahay bukaanada HIV-ga qaba waa la faquuqaa looma adeego, laakiin waxaan la ogeyn in riskiga gudbinta HIV-ga iyo hepatitis-ka marka qofka needle stick injury wax loo yaqaano ama exposure of blood bukaan infected markuu kugu dhaco uu badan yahay hepatitis-ka. Tusaale, haddii 300 oo xirfadla caafimaad uu ku dhaco needle stick injury bukaan infected la ah HIV, hal qof oo ka mid ah ayaa u nugul ama riski ugu jira inuu HIV-ga qaado. Dhanka kale 300 haddii hepatitis ayagoo qabaan uu bukaan dhakhtar xirfadla caafimaad nooc rabaad xirfadlahaas uu ku dhaco needle stick injury bukaankaasna uu hepatitis B qabay especially HBe antigen-ka positive uu yahay, xirfadla caafimaadkan uusan tallaalneyn 90 xirfadla caafimaad oo 300 oo ka mid ah ayaa u nugul. Remember HIV-ga hal uu ahaa 300 oo qofood, hepatitis-ka laakiin B-ga waa 90. bahda caafimaadka marka waxay u baahan yihiin in loo sheego in bukaanada HIV-ga loo adeegi karo. Wacyigelintaas looga faa'iideysto hepatitis-kana transmissionkiisa uu ka badan yahay HIV-ga, tallaalkana lagu dhiirigeliyo. Dadka badankooda xarumaha caafimaadkan haddii policy uu jiri lahaa mandatory looga dhigayo in lagu tallaalo way fiicnaan lahayd si protectionkooda ay u fiicnaato. Subax wanaagsan.